Soomaalidu waxay tiraahdaa inaad saamajiidiyo sanqartirasho kala dah marka waxay la tahay dee way caddahay shacbiga reer Somaliland waa reer Somaliland annagu waa Soomaaliyiin warmayno laakiin waxay ka muuqataa ficilkooda wixii ay dadka ku caayeen in iyagu sameeyaan ceeb bay ku tahay gudoomiye dhawaan waxaad soo qabsatay khilaafkii arrinta doorashooyinka oo aad xal ka gaadheen idinka iyo xisbiga oo doorashadu way qabsoomaysaa baan u sheegaya shacbiga commissionku anigu waxay leedahay dee waajibkooda inay gutaan oo hadday madaxweynaha wara ugu qorayaan inay u qoraan bay ahayd laakiin dadka shacbiga inta soo hortaagan yaa doorasho dhici mayso taas sax ma ahayn farsamo ahaan way kordhi kartaa arrintuna raadkii doorashaday qaaday hadda baarlamaanka waxaa hor yaalla in la kordhiyo commissionka dabeedna tallaabada ku xigtay in commissionkii la dhisto cusbaa oo ay xilka la wareegaan 15 Oktoobar ka hor markaas haddii waqtiga loo baahdo wax laga wada hadli karo weey laakiin waxaan ku talagelaynaa doorashadu inay waqtigoodii qabsoomaan haddii laga maarmi waayana farsamo ahaan commissionka dambe ayaa ka hadli doona heshiiskii xisbiyada waxa ka dhashay saami qaybsi ay xildhibaanada golaha wakiilada qaybo ka mid ah gobolada darafyada ka soo jeeda ay diideen maxaa ka yeelaysan taa